بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوى جوجتان هلكني وا channel كاني عقت يدونا CID برو تي في ورarka wareysyada iyo waxaan u soo joogay jimca mubaarak meel kastoo aad joogtaan July waa 24/2026 wararka caalamka iyo iminka iyo qodobada dunida ugu waaweyn arrimaha dhinaca gacanka iyo badda cas ayaa u muuqda inay si aad iyo aad u sii cakirmayaan marka la fiiriyo xaaladaha ka jira dhinaca Xuutiyiintu oo reer Yemen oo iyagu ay taageerto dawladda Iran ayaa maalmihii ugu dambeeyay culays dheeraad ah ku soo kordhiyay maraakiibta dhinaca badda cas maraysa taasoo ay ballan ku qaadeen inay weerarayaan guud ahaanba waxyaabaha ka imanaya ama ku socda boqortooyada Saudi Arabia. arrimahaasi waxa ay sii kordhiyeen ama sii murjiyeen dhibaatadii xoogga lahayd ee dhinaca gacanka Hormuz oo isaguna noqday mid dhibaato ay ka jirtay si socod iyo soo socotan iyo intii weerarada lagu bilaabay dhinaca Iran oo Israa'iil iyo Ameerikaanku ay bilaabeen 28 bishii February. waxay u muuqataa dhinaca badda cas iyo dhinaca Hormuz oo aad muhiim ugu ahaa guud ahaanba isu socodka gaadiidka dhinaca badda iyo maraakiibta dhinaca ganacsiga in arrimo badan ay keeneen iyadoo maalinka maanta oo Jimco ah barmiilkii shidaal ah la kala siisanayo $100 iyo dheeraad. inay arrintaasi dhacdaana waxa ay ku timid arrimaha soo cusboonaaday ee guud ahaanba ka jira dhinaca gacanka Hormuz iyo weliba dhinaca badda cas. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa magaalada New York waxaa ka hadlay ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan xaaladda dalka Yemen oo lagu magacaabo Hannes Grunberg waxaana uu sheegay in arrimaha iminka Xuutiyiinta Yemen ay yihiin kuwa dib ugu celin kara dagaaladii marka la fiiriyo wadanka Yemen aagana dhibaato u keeni kara oo ay laga maarmaan tahay in xal la helo iyo wada hadal. lama oga sida looga jawaabi karo ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan Yemen oo ka dayrinaya xaaladda iminka soo korortay dhinaca Xuutiyiinta iyo weerarka ay markaasi ay ku qaadayaan maraakiibta. markii la arkay 24 saac ka hor laba markab oo shidaalka oo Sacuudigu leeyahay inay Xuutiyiintu weerareen ayaa maraakiibtii kale aaga maraysay ay ka fogaadeen inay aaga maraan. taasina waa mid keenaysa inay sii raagaan ama ay sii daahaan maraakiibta kala duwan ee isaga gooshaya adduunyada ee shidaalka sida. taasina waa mid keentay in shidaalku isagoo markii hore $100 aad uga hooseeya barmiilka iminka 100 iyo ka badan uu ku sii socdo. dhinaca kale weeraradii iyo dhibaatayntii meesha kama maqna iyo xaaladaha murugsan ee u dhaxeeya dhinaca Iran iyo weliba dhinaca Mareykanka iyadoo Mareykankana lagu eedeynayo ballanqaadka Trump uu ballan qaaday in uu dhibaateynayo kaabadaha ama biriijyada ama buundooyinka waxa loo yaqaano iyo guud ahaanba goobaha kale ee dhinaca korontada ee dalkaasi Iran haddii Iran aanay joojinin gacarka Hormuz dhibaatada ay ka wado iyo maraakiibta ay markaasi weerarayso. arrimuhu iminka waxay u muuqdaan inay faraha ka sii baxayaan aagga gacankuna uu u muuqdo mid ay dhibaatadiisu saameyn hore ugu lahayd kuna yeelan doonto guud ahaanba marka la fiiriyo adduunka gaar ahaan dhinaca tamarta iyo shidaalka. wixii warar ee ku soo kordha xaaladaasi waxaynu ku eegi doonaa wararka iyaga soo socda biidnillaahi kariim ee channelkeena CID Pro TV. ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Ali al-Saydi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa tegay magaalada Tehran ee dalka Iran. waa booqashadii ugu horeysay oo ku tago dalkaasi tan iyo intii bishii May loo idmaday ra'iisul wasaarenimada wadankaasi Ciraaq. waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Ali al-Saydi madaxweynaha wadankaasi Iran Mas'uud Pezeshkian oo ay ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya labada dhinac marka la fiiriyo ee dhinaca Ciraaq iyo weliba dhinaca Iran. dawladda Ciraaq ra'iisul wasaaraheedu wuxuu ka mahad celiyay taageero waqtiyo kala duwan oo Iran u fidisay wadanka Ciraaq xilli u baahnaa. labada dal waa laba dal oo wadaaga isla markaasina marka la fiiriyo dhinaca diiniyan shiicadu ay tahay mid sida aadka ugu badan walow dhinaca Ciraaqna sunnigu uu jiro laakiin haddana colaad laga abuuray dhexdooda hadda ka hor sanadkii 1980 oo dagaal 8 sano socdo u dhaxeeya marka la fiiriyo wadamada Ciraaq iyo Iran taasoo ah 1980 ilaa 1988. labada dal waxay ahaayeen muddaba kuwa wax wada qabsan jiray walow carqalada ay jireen laakiin haddana marka la fiiriyo iminka colaadan jirta ee dhinaca gacanka ayaa Ciraaq waxaa fadhiya ciidamo Ameerikaan ah oo iyagu halkaasi ka beegsada marka la fiiriyo waxyaabo badan oo ay doonayaan gacanka inay ka meel marsadaan. taasina waa mid keenaysa in xiriirku uu mararka qaar mugdi galo dhinaca Iran iyo weliba dhinaca Ciraaq laakiin iminka waxay u muuqataa booqashada ra'iisul wasaare Ali al-Saydi ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq uu ku tagay dalka Iran mid sii xoojin karta xiriirka u dhaxeeya labada dhinac ee dalalka wadaagta ah ee Ciraaq iyo weliba dalkaasi Iran. halkaad nagala socotaan waa channelkeena CID Pro TV. iminkana waxaad kusoo dhawaataan qadar xayisiisa oo ku saabsan Mega Dentist oo xarun dhinaca ilkaha lagu daweeyo oo laba xarumoodna ay ku yaalaan magaalada Istanbul xarunna Ankara ee dalkaasi Turkiga.
wararka ka imanaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxay shaaca ka qaadeen culays xoog leh inuu jiro oo ku saabsan faafitaanka uu sii faafayo cudurka Ebola iyadoo marka la fiiriyo xaaladdu aanay wanaagsanayn. dhinaca kale warar ayaa sheegaya dhaqaale darro inay jirto marka la fiiriyo qolyaha ka shaqeeya caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanta ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO ayaa waxay ka daarinaysaa xaaladda sii badanaysa iyo weliba sida degdega ay ku faafaya iyadoo la sheegay ilaa 1,100 iminka inay kusii socoto tirada dhimashada tan iyo intii cudurkan la arkay 15 May ee sanadkan. sanadba sanadka ka dambeeyay waa uu fiicnaa, laakiin waxaa jira sanooyin badan oo uu soo maray oo dalkaasi aafeeyay oo kumanaan uu markiiba ka dilay. ilaa 17 jeer ayuu cudurka Ebola kusoo laabtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo marka laga bilaabo 1976 taasoo ka dhigan maalinka maanta 2026 ilaa iyo 50 sanadood. lama oga sida xaaladdu ay noqon karto, laakiin faafiddu aad ayay usii kordhaysaa marba marka ka dambeysa haddaan xal kale oo degdega aan loo helin cudurka Ebola ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. wararka ka imanaya dalka Nigeria waxay shaaca ka qaadeen in la maxkamadeeyay 3 ruux oo loo arko inay yihiin qolyo ka qayb ah dadka afduuba ee kadibna madax furashada weydiista. raggaasi iyaga ee 3 markii la maxkamadeeyay dhammaantood way qirteen in dhacdooyinkii ka dhacay gobolka lagu magacaabo Oyo ee waddankaasi Nigeria ay ku afduubeen arday gaaraysa ilaa iyo 44 iyo weliba macalinkoodii. alaaba dadkaas iyaga ee wax afduubeen 3 iminka lagu xukumay xabsi daa'imku ay ku jiraan. dadka ayay afduubaan gaar ahaan ardada iyo weliba kaniisadaha, kadibna way fogeystaan, kadibna madax furasho ayay weydiistaan. arrintaasi waa midda isha xun u yeeshay iyo dhibaateynta marka la fiiriyo waddankaasi Nigeria. iminka 3 la maxkamadeeyay waxa ay sheegeen inay qirteen inay ka tirsan yihiin ururka Boko Haram oo inta badan ka qowleysta marka la fiiriyo dalka Nigeria, weliba dhinaca waqooyi bari iyo gobolka lagu magacaabo Borno. laakiin dhacdadan iminka dad 3 la xukumay ee lagu xukumay xabsi daa'imku waxa ay ka dhacday halka lagu magacaabo Oyo oo ah meel iyadoo ardadu ay wax baranayaan lasoo weeraray, kadibna macallinkii ardadii la watay, laakiin ciidamada amniga ee dalka Nigeria aagga ay ku baxeen kadibna ay ka soo furteen. lama oga sida lagu joojin karayo maxaa yeelay culays xoog leh ayaa ka saaran dowladda Nigeria kooxaha kala duwan ee qowlisatada ee magacyada kala duwan leh ee iyagu hubaysan ee mar walba dadka qafaasha kadibna madax furashada weydiista. dhowaan ayay ahayd magaalada Abuja markii lagu maxkamadeeyay ilaa 500 oo ka tirsan qolyaha kala duwan ee iyagu hubaysan ee wax afduuba oo 400 oo kamid ah xabsiyo kala duwan markaasi lagu xukumay. arrintani waxay tusaale u noqon kartaa inay yareyn karto marka la fiiriyo kuwa iyagu wax baadi gooba ee wax afduuba ee lacagta weydiista, mar haddii qaarkood xabsi daa'im lagu xukumay. dowladda ka jirta waddanka Nigeria iyo madaxweyne Bola Tinubu ee shaaca ka qaadeen inay geed gaaban iyo geed dheer u fuuli doonaan siday u maxkamadeyn lahaayeen, una qaban lahaayeen, una xakameyn lahaayeen kuwa iyagu hubaysan ee dadka dhibaateeya gaar ahaan ardada iyo weliba macallimiinta. weli waxaad nagala socotaan waa channelkeena CID Pro TV. wararka ka imanaya dhinaca bangiga dunidu waxa ay shaaca ka qaadeen in la qiimeeyay marka la fiiriyo dhibkii xoogga lahaa ee dhacay ee 2 jeer dhulgariirkii isxigay ee ka dhacay dalka Venezuela bishii June ee lasoo dhaafay. wararkuna waxa ay sheegayaan in dhibaatada dhacday marka la fiiriyo dhismayaasha dumay iyo weliba kaabayaasha dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi gaar ahaan magaalada madaxda Caracas iyo La Guaira halka lagu magacaabo lagu qiimeeyay adduun ku dhow ilaa 20 bilyan oo ah khasaare. marka la fiiriyo haweeney lagu magacaabo Susana oo bangiga adduunka u qaabilsan ee dhinaca ku-xigeenka arrimaha Latin America waxa ay shaaca ka qaaday inay laga maarmaan tahay qiimeynta la qiimeeyay in wax laga qabto guud ahaan dalka Venezuela oo dhib aan uu ka jiray tan iyo intii dhiladani ay ka dhacday. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay hore shaaca uga qaaday dadka guud ahaanba ku dhintay arrinkan inay kor u gaafayaan ilaa iyo 5,000 oo qofood, iyadoo ay dad badani ay markaa ku dhaawacmeen oo ka badan ilaa 17,000 oo ruux, welibana guryo la'aan ay ku dhacday dad kale oo aad u fara badan oo kumanaana. warbixintan iminka iyo qiimeyntan ay samaysay marka la fiiriyo World Bank ama bangiga adduunka waxay tahay mid marka lagu qiimeeyo laga maarmaan ay tahay in loo gurmado kadibna wax loo qabto dadka dhibaataysan ee weli tabanaya in culaysku uu ka soo gaaray dhulgariirkii dhacay bishii June, iyo weliba iyadoo la aaminsan yahay sida qaramada midoobay oo kale iyo qolyaha iyaguna wax baadi gooba inay weli jiri karayaan dad badan oo aan la helin raqdoodii iyo ruuxoodii dhibkii xoogga lahaa ee ka dhacay marka la fiiriyo guud ahaanba waddankaasi Venezuela markii dhibaatadu ay ka dhacday.
maamulayaasha magaalada Caracas waxay dunida ugu baaqeen in wax lala qabto dadka iminka dhaawac uu soo gaaray iyo kuwa hoyga aan haysan iyo waliba in aad loola socdo mar haddii dhibka dhacay uu gaarsiiyay meelaha qaar in restaurantiyada ama maqaayadaha laga dhigo goobo wax lagu dabiibo oo dhinaca caafimaadka markaasi loo adeegsado ee waddankaasi Venezuela. intaas ayaan jeclahay inaan kusoo qatino wararkeenii koobnaa oo ku saabnaa guud ahaanba wararka dunida ee channelkeena cagta iyo dunida CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay meel kastoo aad naga dheehanaysaan fikirkiina iyo talooyinkiina nala wadaaga adinkoo nagala xiriiri kara guud ahaanba goobaha aad naga dheehataan. Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhige iyo bahda CID Pro TV waxay idin leeyihiin jimca mubaarak kala ma tegina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.